السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad hore u aragtay waxtarka liin dhanaanta iyo geedka kurkumka ee aynu huruudda u naqaano, waxaa kaloo jirta in la isku daro labadooda ayaa iyaduna ah arrin kale oo muhiimadeeda leh. Sida lagu sheegay daraasad laga sameeyay jaamacadda California qaybteeda caafimaadka ilkaha, waxaa lagu sheegay in maadada ku jirta huruudda ee kurkumin ay la dagaalanta igfashanka. Taas darteedna marka lagu daro liin dhanaanta ay sii xoogaysanaysa inay ka hortagaan igfashanka. dhinaca kalena, iyadoo cabitaanka biyuhu ay qayb weyn ka yihiin caafimaadka jidhkeenna, haddana haddii aad tahay qof aan biyaha u cabbin sidii loogu talagalay, waxaa kuu fiican inaad isku darto kurkumka ama huruudda iyo liin dhanaanta, kadibna aad cabto xilliga quraacda. Sidoo kalena isku daritaanka labadan shay oo la isticmaalaa waxay hoos u dhigaan cilladaha ku yimaada dheefshiidka iyo guud ahaanba caloosha, waxaanay wanaajiyaan shaqada wadnaha iyo habsami u shaqaynta unugyada dhiigga qaada, waxaanay u fiican yihiin maqaarka sare ee jidhka iyagoo la dagaalama bakteeriyada. Haddaba waxaad isugu dari kartaa labadan shay inaad koob ay ku jiraan biyo diirani aad ku darta malqaacad yar barhkeed oo ah biyaha aad ka toojisay liin dhanaanta, kadibna aad ku sii darto wax yar oo malaba, haddana aad ku sii darta malqaacad yar barhkeed oo huruuda, kadibna aad cabto xilliga quraacda. Haddaba arrin kale ayaa ah in koob biyo diirana iyo malqaacad kurkuma aad isku darto oo aad cabto subaxda hore. Cabitaanka noocani wuxuu aad u wanaajiyaa caloosha, isagoo meesha ka saara cilladaha ku yimaada dhinaca caloosha sida dibirada iyo gaaska caloosha. Dhinaca kalena cabitaankani wuxuu aad u xakameeyaa khatarta dhiigkarka, waxaanu la dagaalamaa xanuunka dadka waaweyn ku keena asaasaqa ee Alzheimer. dhinaca kalena cabitaanka noocani wuxuu aad u qurxiyaa muuqaalka sare ee jidhka, waxaanu isku dheeli tiraa sonkorta jidhka, waxaana lagula taliyaa dadka waaweynay inay isticmaalaan cabitaanka noocana isagoo aad ugu fiican meelaha kala goysyada ah ee jidhka, gaar ahaan markay dadku waaweynaadaan. qaabka loo diyaarinayaana waa in malqaacad kurkuma oo aad budo ka dhigtay aad ku darto koob biyo diirana, kadibna aad xoog isugu walaaqdo oo aad cabto subaxda hore quraacda ka hor. Ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa caafimaad taama iyo dembi dhaaf. aad baad u mahadsantihiin.